tiiraanyada uga diraynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed Xaaji Cali wuxuu ahaa nin Soomaaliyeed siyaasadda Soomaaliya maanta marxaladda ay ku jirtana hormuud ka ahaa wasiir soo noqday maamuladii iyo systemkii la soo marayay oo dawladihii ku meel gaarka ahaa iyo ururadii dalka u soo halgamay hormuud ka ahaa ilaa iyo gudoomiye urur noqday siyaasiyiintii ugu sarreysay ee digili miriflahana ka mid ahaa ganacsatada ugu waaweyneed ee digili miriflaha ahaa nin oday ahoo caan ahoo oday Soomaaliyeed ahaa markii ugu dambeysayna go'aansaday inuu maxay ahayd bulshadiisa wax muhiim ah uu ku soo kordhiyo ganacsi iyo nabadeyn iyo waanwaanta dalkan ka jirtay hormuud u ahaa gacan ka xaq daranaa dishay ilaahay naxariistii janno ha geeyo dadkii ehelka ahaa oo qaraabada ahaa waxaan leenahay samir iimaan Allah in ka siiyo dadka Soomaaliyeed oo yaqaanay nin Soomaali oo aad loo yaqaano ahaa Soomaalida hore ka hartay dadka Soomaalida dhan ay wada ka saayeen ayagana waxaan leenahay samir iimaan Allah in ka siiyo asagana naxariista janno Allah geeyo ilaahay idankiisa baadigiisana ilaahay nama fidneeyo arrintan cidii ka dambeysay iyo cid kasta oo suubisay oo ugu timid beertiisa ku dishayna waxaan jecelnahay oo hay'adaha amniga ku amreynaa go'aan ahna aan qaadanaynaa in gacan ku dhigilayaalkii la soo qabto maxkamadna la saaro wixii xaq u lahaayeen ay helaan insha Allah masiibada socotana ilaahay inuu dhinac naga mariyo dadka ehelka ahaa oo dhibaatada ay gaartayna waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu ilaahay samir khayr qabo uu siiyo ilaahay agtiisa u samraan ilaahay baa jeclaystay jacalay nin akhyaaroo wanaagsan u ahaa annaga dhan samir Allah naga siiyo wixii hadda ka dambeeyana insha Allah waxaan ku dadaalaynaa in masiibadan ilaahay inta nooga ekeeyo dhul iyo qabiil yaa lagu waashay dadka reer Koonfur Galbeed dhul iyo qabiil si loogu jiro meeshuu nageeyay waa aragnay marka cidda mushkiladda wadana insha Allah waa la soo qaban doonaa ilaahay naxariistii janno ha geeyo annagana samir Allah naga siiyo